qolada kale ay la weeraraysaan waxaa bilowdaan dhufaysyada iyo khanaadiqda iyo waxaan ay qoteen iyo meelaha kan idinkaa kala garanaya ila dumiya muslimkii xagga kani waxay u eegyihiin muslimkii deganaa maxay afghanistan waqooyigeeda iyo akraadii ciraaq iyo shiicadii ciraaq baabkii oo kale weeyaan waa lala jafay markii la jafay 10 maalmood ayuu xisaar ku hayay go'doomin qalcaddaasi ama dhufayskaa weyn 10 casho kadib ayuu jabsaday dabeetana wixii ku jiray midh lagama sii dayn waa la gumaaday markuu qoladii gumaadkooda ka soo jeestay ayuu dib u soo noqday magaalada intii kaleba wuxuu yidhi codsi wixii magaalada dhaqaale yaalla ha la soo saaro dahabka iyo kunusta iyo fidada iyo wixii aa meesha ku haysateen intaasaan rabaa buu yidhi ha la soo saaro waa la cabsanayaa wixii ciidanka harsanaa raggii yidhi intii tidhi aan dagaalamayna laga takhallus intani waa intii awalba isdhiibtay calanka caddi dhiibatay xoolihii baa loo keenay magaalada wixii dhaqaale yaallayna waa kan baa la yidhi markuu dhaqaalihii isku hubiyey ayuu ciidankiisii wuxuu yidhi waa fasaxantiin haddaba waa fasaxantiintu waa yaan waxba laga sii daynin bukhaara siday u dhammayd dhiiggaa dhegta loo daray gawraca magaaladii dhammayd waa la laayay hantida intuu isagu qaatay mooyaane askartii baaqigii baa lagu sii daayey waa la waday magaaladan iyo siday u ekayd ibnu kathiiro ka warramaya wuxuu leeyahy faqataluu min ahlihaa khalqan laa yaclamuhum ila allah waxay laayeen buu leeyahay dad aan tiradooda alla mooyaane cid kale garanaynin carruurtii iyo dumarkii waa kaxaysteenoo waa fara xumeeyeen bale dumarka reerka ragga hortiisa dumarka lagu fara xumaynayay xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo maxaa la yidhahdaa hablihiisaba hortiisa lagu fara xumaynayay ciddii madaxa ka yara taagta ama isa soo taagtaana madaxa laga jarayay markuu magaaladii wixii adduun yaallay qaatay wixii rag joogay dilay wixii dumar joogay la fara xumeeyey ayuu yidhi haddaba baxa baaqigiina wuu gubay baaqigiina wuu gubay bukhaara intii dagaalantay iyo intii isdhiibtayba waa dhimata magaalada bukhaara la odhan jiray intii dagaalantay iyo intii isdhiibtay labadiiba waa dhinteen wa nuhlik وفينا أن نهلك وفينا الصالحون حديث صحيح محولها نبي جاي ويدي سميانو هلاك سيمنا مسوانا الهلاك يا يضا ضدك صالحين تنقول جيران قال نعم إذا كثر الخبث بالنبي يقول حموها ضوبطها ولا يدوم هذا هلاك يا مركو بخارى دول خلاص ما يبور دقاقة سوى عيدا كيسي وطه وعقبت مقالة كو حكته سمرقند samarqand waa magaalo weyn oo zabakistan meesha nimanka la yidhaahday ku taalla waa magaalooyinkii muslimiinta ee caanka ahaa waa samarqandiya agagaarkeeda maalan suqdatu samarqand taarikhda waa ku aragteen waxay yidhahdaan jannaatu dunya 4 baa la odhan jiray jannada dunidu waa 4 baa la odhan jiray suqdatu samarqanda baa ka mid ahayd 4 la tirin jiray suqdada la sheegayo waa tuulooyinka magaalooyinka yarar ku xeerxeeray samarqanda waxay yidhaahdeen 5 maalmood oo aad dhan kastaba u socoto 5 maalmood socod ah ayaa beer iyo bustaan iyo dhul cagaaran ahaan jirtay waxay yidhahdeen meesheeda sare haddaad korto abidkaa saxaare iyo meel xun ishaa qaban mayso webiyadaa wada dareeri jiray dhul aad u qurux badan buu ahaa dad aad u tiro badanoo muslimiin inay degan yihiin magaalada bukhaara wixii uu laayay mooyaane wixii uu soo kaxaystay maxaabis buu soo kaxeeyey ibnu kathiir maxaabis ibnu al-athiir aan idhaahdo ibnu al-athiir maxaabistaa markuu ka warramayo wuxuu leeyahay qofkii daala inta lagu soo socdo bukhaara iyo loo kala socday qofkii daala ama socon kari waaya waa la dilaa inta kalena waa la raraa waa inay socotaa haddaad daasha oo wax lagu dhibo ama qaadi karo ama socon kari waydana waa lagu dilaya dee dadkii dilka ay ka cararayaane qofkii ku ruushin karaaba waa soo socday
samarqanda markii loo soo dhowaadayba wuxuu rabaa inuu reer samarqanda bajiyo inta aanu dagaal la gelin maxaabiistii muslimiinta intuu qaybqaybiyey ayuu 10kii walba calan buu u dhiibay kii ah calamadii tataarka ah 10kii qofba calan buu siiyey waxay reer samarqanda arkeenuun waddan dhan oo calankii wada sita oo soo socda waaba muslimiintii maxaabiista ahayd kuwan calanka sitaa ciidamadiina waa ka sii dambeeyaan markii meeshii uu arkeen dadkii haziima nafsiya baa ku dhacay qalbi jab maxaabiistii wuxuu ku qasbay inay dagaalamaan haddii kale waa laydin laynayaa buu yidhi ciidankiisa qoladii gamuunlayd ahayd ama waxganaysayna wuxuu yidhi nin walba maxbuus qabso kaxayso gaashaanku waa isaga isu dhig dabeetana gamuunkaagana rid kanna ku beegnow hadduu nuuxnuuxsadana gowrac waxaana yidhahdaan shield bashariya yacni dad lagu gabbado ayuu baaqigiina ka dhigtay magaalada dacalkeedii markuu soo gaadhay si magaalada loo argagaxgeliyo wixii intaasoo dhan ka soo badbaaday magaalada dacalkeedii markii uu yimina wuxuu idhi ku hor gowrac magaalada baaqigiina halkaa birta lagu mariyey reer samarqanda markaa naftii baa isugu timi reer samarqanda naftii baa haysata reer samarqanda waxay isku dayeen boqorkii meesha maray 50,000 oo askari buu u sii dhigay oo uu meeshan kaga tegey 50,000 ee askari ee meesha joogay ee madaxdoodiiba ka tagtay iyana waa cabsadeen tiradu wax ma tarto ee dadka tayadiisa iyo iimaankiisa iyo intay alla rumaysayin baa wax badan tara magaaladii markii dhan walba xisaar lagaga sameeyey go'doomin markii dhan walba lagaga sameeyey ayuu ciidankii dhammaaye meesha magaalada lagaga sii tegey waxay ahayd inuu magaalada ka soo baxo debadda ku dagaalamo debadda uma bixine magaaladii gudaheedii buu galay qalcaadkii dadku ku jireen buu la galay isla markaana waxay gaansadeen go'aan ah inay isdhiibaan dabeetana dadkii magaalada joogaa ku qayliyo waxaa la isku dayay in la qanciyo fula baqa cararaya dee cidima joojin karto waa diideen waxay aqbaleen samarqanda magaaladii samarqanda la odhan jiray inay iyana dhiibaan dadkii markuu sidaa arkay culammadii iyo dadkii baa wada hadlay waxaa la yidhi war kuwani askarna maa cidinayna difaaci maysa aan isdifaacno aan wax iska celinno 70,000 ayaa markaa soo baxay oo dadkii magaalada degganaaya seefoodiiyo warmahooda qaato o yidhi waa isdifaacaynaa dadka kani waa dad xamaasade hayso laakiin maaha dad military trained ah dad ciidannimo loo tababaray maaha waa dad u nacay iyagoo faramadhan inta loo yimaado in birta la mariyo oo la gowraco waayo waxay ogyihiin magaaladii dhammayd ay isdhibteen bukhaara ahaydba sidii loo galay marka kollayba waa dhimanaysaan bay leeyihin inay idinkoo soo jeeda dhinta waa soo baxeen jinkis khan waa khabiid taagtiyahana 70,000 markay soo baxeen oo u garanaya inaan ahayn raggii militariga ahaa ee dhabta ahaa ayuu wuxuu sameeyey taktiig dagaal oo ah aan u baqa cararo dadkii markii la isku soo baxayba wuu u baqa cararay ciidankiisii wuxuu faray inay baqa carar sameeyaan baqa cararku waa inaad iska dhigto sidii nin jabay oo cararaya oo tegaya laakiin xeelad dagaal buu wadaa ma rabo waa soo baqa cararay dadkii awalba xamaasadaysanana waxay islaahayeen wallahi waa kaa gaalka idiin jabay seeftaa lagala daba cararay waa laga soo daba aguumay ciidamadiisii qaybuu meel sii dhigay dadkii markuu magaaladii kala baxay ee uu gaar ula baxay ayuu kamiinadii xagga dambe ka mareen waxaa laga xidhay xaggii magaalada iyo midadka ay ka heli lahaayeen dabeetana labada dhinac baa askartiisii ka gashay 70,000 madaxa laga jaray
toddobaatankii kun ee soo baxay 70kii kunba madaxaa laga jaray dufca waaxida mar keliya 70 kun oo reer Samarqand ah oo intoodii iimaanku uu ku jiray wax isbaday ah iyagana la gumaaday maxaa soo hadhay magaaladii buu ku soo noqday markaasi oo go'doomiskii buu ku bilaabay ciidankii 50 kun ee war dagaalama looga taag waayay gudaha ku jiray Genghis Khan bay la xidhiidheen waxay yiraahdeen way is dhiibaynaa laakiin nabadgelyo nasii dadka intii kale magaalada ku hadhay way diideen warsaana si maaha baa la yidhi qoladii ciidanka ahayd way ku adkaysatay tataarkuna wuxuu yidhi nabadgelyadaan ogolay dabeetana albaabadii magaalada ay qasab ku subeen qasab bay ku fureen waa askar shacabtana ka adag waa halkii gabayaaga carbeed muxuu lahaa asadun calaya wa fi lxuruubi nacaamatun aniga buu yidhi markaa way arkaana waa libaax dagaal markuu dhacana waa goraya buu yidhi waa cararaya waa askar shacabkan iyo masaakiintanna ka adag halka raggu isku haya marka la taagana calanka cad bay geynayaan dadkii waxay ku qasbeen albaabada in la furo magaaladii Samarqanda ahayd albaabadaa loo furay dabeetana Genghis Khan iyo ciidankiisii baa yimi oo yidhi shuruuda heshiiskee nabadgelyada ku helaysaan waxa weeyaan kow hubka soo dhiiba iyo fardaha iyo xoolaha idinkana waxaan idin gaadhsiinayaa dhul nabada iyo meeshii aad rabteen waa ciidankii dee dawladda markaa wuxuu leeyay wixii huba iyo fardo iyo dawaab aad rarataan xoolo wixii ah la soo wareejiyo idinkana waan idin geynaya waa idin kaxaynayaa dhul nabada meeshii aad doonaysaan baan idin qadabadsiinaya waa rag dee jabay yani fulaha haddii inan yari u hanjabo inanka yar xooggiisu uma muuqdee digdigtiisaa u muuqata waa jabeen nimanka kani maadaama ay jabeen hubkii iyo wixiina waxay idhaahdeen waa kan naga qabo ciidanku wixii uu hub haystay meel buu ka dhigay waa un nidaamkan maantaba la isticmaalay cunaqabatayn ku soo roga hubkaa laga dhigo iyaan waxba laga iibinin waa kan maalinta dambena oo lagu duulaa marka wax walba wakhtiga laga dhigo hubkao dhan markii uu ka dhigay ayuu magaalada soo galay dabeetana wuxuu amray in raggooda iyo dumarkooda iyo carruurtooda kuwan waxba inaan laga sii dayna la laayo magaalada tan wixii xoolaana la qaado dadkana in la cadaabo ilaa iyo xooluhu halkay ku qarsooyin inta ay ka sheegayaan dumarka iyo carruurta wixii in la addoonsadoo la kaxaysta aanu cuntaminee ama weyn ama xanuunsanaya ama kuwaana ma wadwadi karnay hala dilo jaamica magaalada masaajidka ugu weyn ee magaalada ku yaallana hala gubo Genghis Khan magaalada tan dhulkuu la siba bukhaaro wixii ku dhaceen Samarqand iminkana sidan ay socoto cid muslimo oo soo caawisay oo soo kacdayna ma jirin boqor yaroo waliba wuxuu salaaday adigu dawladdaadii yareyd iyo xuduuddaadii iyo intaadii iyo askartaadii iyo waxaa gabaad haysataa reer hebel baa la laynaya adiga maxaa kaa galay bale waxaabaa laga yaabay inuu ku farxayo dee dagaallo horay wada galeena ways hayeen waxbaa la yaamin waa wax maanta dunida ka socda une faluujaa la liqaya inta kalaa daawanaysa falastiin baa la liqaya inta kalaa daawanaysa waa nafsi shay Genghis Khan magaaladii Samarqand la yidhaahdo Samarqand ayuu fadhiistay dabeetana wuxuu yidhi magaalooyinkan iyo layntooda tani wakhti badan bay iga luminaysa magaalooyinka kan iyo layntooda wakhti badan ayay iga luminaysa ee maxaan samaynayaa 20 kun ee ciidankiisa uu raggii ugu khatarsanaaya
ayuu soo saaray dabeetana wuxuu yidhi dowladda tani jabtay ee waxaan rabaa moxamed ibnu khawaarzim shaah madaxiisa in lay keeno boqorkii ha laga daba tago wax kaloo aa eegtaan yay jirin socda boqorkii baan idiin diray isna wuxuu degay samarqanduu iska degay utlubuuha ina kaana walow tacallaqa bisamaa buu yidhi bay idhaaheen meel kasta uu jiro ninkaas raadiya samada hadduu qabsadaha ka hadhina waa istihzaa bilmalaayiin almuslima u fiirso waa 20 kun oo askari dowlad dhan oo 2-3 magaalo laga haysto intii kale dhexda ayuu u dirayaa waa caasimadii waddanka meeshuu ku socdaa 20 kun baanu u diray marka kan soo qabta buu yidhi madaxweynihii waddanka ninkii moxamed ibnu khawaarzim shaah ahaa waa kii cararay magaaladiisii orjanda lo odhan jiray buu tegey wixii uu ciidan urursan kara u urursaday meeshii buu isu joogay wakhti yarba intaan la joogin waaba tataarkii oo xiimaya muslimkii oo dhan soo dhex jeexay organda maraya organda waxaa mara nahru jiixoonkaynu sheegaynay webiga markaa dhankiisa galbeed bay magaaladu ku taallaa dabeetana webiga sad weyn buu leeyahay yacni wuxuu leeyahay biyo xidheen weyn ayay meesha ka samaysteen 20 kun ee askari oo yaacayo tataarka ahaa baa soo galay dhinacii bari bayse soo taageen wabaa ka xiga magaaladii say u tallaabi doonaan qolada tani waxay arkaan mar haddii webigii weynaadee meesha ka xiga inaan cidina doonyana ma joogaanoo meesha wixii yaallay waa laga qaaday lama rajaynaya in cidi ka soo tallowdo taktiik military bay nimankanina isticmaaleen markay meesha yimaadeen waxba waayeen looxaan bay dhiseen dabeetana harag bay ku dahaadheen loox xeedhoo kale la sameeyey harag baa dabeetana lagu dahaadhay wixii qalabee ka qoyayay oo dhan baa lagu guray dabeetana fardihii baa laga daadegay faraskaa webiga lagu ridayaa ninkana farasku dabada qabsanaya looxan weyn iyo waxaana gacantu ku qaadaya farduhu waa dabaal yaqaanin faraskaa dabaalanaya oo ka tallaabaya askariguna faraskaasuu dabada haysanaya askariguna wuxuu gacanta kale ku haynayaa bahashan dhan buu jiidayaa looxan dhan ee alaabtu saarantuu jiidaya nidaamkaasay kaga tallaabeen 20 kun ee askari iyo qalabkoodiiba xagga shishaa loo tallaabiyey intii waxaanoo ciidani soo tallaabayaan xaggee lagu maqnaa dowladda mukhaabaraadkeedii miyaa la hurday sidee wax ahaayeen lama garanayo moxamed khawaarzim shaah iyo ciidankiisii wuxuunbay idhaa kala qaadeen nimankii ciidankii tataarka oo ka soo tallaabay webigii oo dhankii kala taagan moxamed khawaarzim shaah markuu ogaaday in lasoo tallaabay koox ciidankiisii ka mida iyo waxbuu kaxaystay waa dhaqaajiyey waa ka baxay magaaladii isagoo aan waxba eegin ibnu athiir wuxuu leeyahy waraxala moxamed khawaarzim shaah laa yalwi calaa shayin fii nafarin min khaasati cidna isagoo aan dib u eegin waxoogaa yaro kooxdiisii u kaxaystay dabeetana wuu baxay wuxuu qabtay naysaabuur waxay ku taallaa koonfurta arjanda ayay ku beegan tahay maadaama uu cararay ciidankiina madaxdu de hadday kaa carartay ciidanka intii kalena waa iska kala yaacday laakiin 20 kun ee askari nidaam ayuu ku soconayay ninka jinkis khaan la yidhaahdaa awaamirta sideeday u fulinayaan ma odhan magaalooyin gala cid qabta aniga ninkaa ii doona bay yidhaahdeen ciidankii markuu kala yaacay ninkiina uu baxsaday magaaladii may eegin odaygii cararay bay ka daba tageen magaaladiina waa iska dhaafeen madaxweynihii waa rooray wuxuu rooraba magaalada naysaabuur la yidhaahdo oo koonfur ka xigta ayuu yimi kooxdanina waa ka daba timi
waxba may dilin waxba may boobin waxba toos bay u socdaan muslim tiro badan bay dhex marayaan muslimka laftiisiina waxay sidhaahdeen waar baladan haddii ilaahay idinka badbaadiyo beelaan isku taataabinina iyana haydin dhaafaan iyana cidna ma taabtaan muhiimaddooday u socdaan dadkii iyo askartii iyo wixii kale meel kaga soo horbaxaana nimankana aan idinba taabanayn idana ha taabanina laydhao jidkaa loo baneeyey jidka markii si fudud loogu baneeyey odagii bay daba jabacsadeen intii aanu ciidanba urursanin ayaa warku soo dhacay ee odhanaya naysaabuur nimankii waa dul taagan yihin 20,000 kun ee askaroo xiimaya naysaabuur bay joogaan markuu warkaa maqlay madaxweynihii waxoogaagiisii intuu urursaday ayuu maazandaraan magaalo la yidhaahdo taw ugu siiyey waa ka baxay tiina waa eeraan oo magaalo ku taalla naysaabuur markayse soo taageen baa la yidhi madaxweynihii waa baxay kumay weecan magaaladii odagii bay ka daba tageen magaaladii iyana waa iska dhaafeen madaxweynihii sidii u ordayey wuxuu soo galay magaalo rayi la ydhaaho waa dhanka bari buu markaa uga kacay markii hore arjanda buu ka yimi naysaabuur oo koonfuruu yimi bari buu u jeexay haddana wuxuu qabtay markaa magaalo rayi la yidhaahdo ray markuu yimi ayaa loo sheegay nimankii inaanay magaalooyinkiiba ku hakan cidna laynin ay daba socdaan waa dhaafay iyana hamadaan buu usii kacay waa magaalo kale oo eeraan ka mida iyana nimankii tataar waa yimaadeen waxaa la yidhi duqii hamadaan buu ugu tawsiiyey waa ka daba shubeen magaaladii iyana kumay weecanin waxa ay magaalo marayaan ciidamo muslimiina jooga dad muslimiina jooga waa ummad muslima waa madaxweynihii ninkan la eryaya laakiin baqihii dadkan galay iyo warkii labadaa magaalo dadka siduu u soo gaadhay cidiba xaggan faraha u fiiqi mayso waa loo baneeyey jidka iyana waa ka daba tageen hamadaan isagoo jooga ayuu maqlay nimankii haddana inay weli soo socdaan rayi buu ka soo baxay hamadaan buu joogaa maazandaraantu markii hore ka yimi ayuu dib ugu kala fireeyey maazandaraan buu dib ugu noqda iyana waa ka soo daba laabeen wuxuu maqlay nimankii haddana in yar bay kuu soo jiraan waa carara madaxweyne waddankiisii weli haydan sii ka cayaaraya maxaa la yidhaahdaa baashan dhuumashada iyo soo helitaanka waa baxsada baxsadkii wuxuu qabtay gobolkan la yidhaahdo tabristan waa gobolka ku xiga ghazwiin baxru ghazwiin baddan yar ee ghazwiin la yidhaahdo gobolka ku xiga muslimiintu degi jireen baa tabristan la odhan jiray gobolkaasuu ta ugu siiyey dabeetana waa ka soo daba baxeen wuxuu gaadhay badda markuu tegey ayuu doon fuulay dabeetana gaziirad yaroo badda barhtankeeda ku taalla ayuu degay siday u soo eryayeen bay xeebtiisa soo taageen nasiib darro dee wuu ka baxsaday iyo nasiib wanaag midaytay garan maayo boqorkii lama hayo meeshii markayse soo taageen dee tani webi maahe waa bad markaa dib bay uga laabteen boqorkii meeshii waa ku busaaradsaday waa ku cidlaystay waa ku fool xumaaday waa baahaday waa ku baktiyey waa dhinta addawla alkhawarzimiya ninkii ka talin jiray kafan baa loo waayey furaashkuu ku seexan jiraa lagu aasa addawla alkhawarzimiya ee dhanna jayna dacalkeeda joogta dhanna ciraaq dacalkeeda joogta dhanna baxru ghazwiin joogta dhanna nahru sind ayay joogtaa bakistan afghanistan istaan oo dhan nahru sind webiga la yidhahdee mara gobolkan sindi la yidhahdee ku yaalla bakistan intaa waddanka leeg ninkii ka telinayey kafan baa loo waayey furaashku ku jiifaa lagu aasay aynamaa takunuu yudrikkum almowt walow kuntum fii buruujin mushayada meel kastoo aad tegtidba
geeriyi way ku haleelaysaa. addawla alkhawarzimiya haddaan in yar dib ugu noqdo, moxamed ibnu khawarzim shaah wax cajiiba ka arki doontaan haddaan isaga taarikhdiisa in yar ka warramo. 21 sannadood iyo weliba bilo ayuu waddankaasi ka talinayay. 21gaa sane uu ka talinayey boqortooyadiisu way sii ballaadhanaysay. boqortooyooyinkii yararaa ee agtiisa ka jiray oo dhan wuu baabi'iyo isagu isku soo hoos daray. min ciraaq ilaa turkistaantan hadda uu qaybta haysto china ilaa ciraaq inta ka dhexlay dowladdani ahayd. afghanistan buu xukumi jiray, qayb indiya ka miduu xukumi jiray, sajastan buu xukumi jiray, maxaa la yidhahdaa karmaan oo bakistan qayb ka mid ah buu xukumi jiray, qabristaantaynu ka warramayno, waxaasoo dhana buu haystay. ninkan xaalkiisu siduu ahaa? ninka kani shakhsi ahaan cibaadiya maamulba uu ku fiicnaa baa la yidhahaa. bal u fiirsada, waa wax cajiiba arki doontaane. waxay yidhahdaan wuxuu ahaa nin sabir badan oo dhibaatada u adkaysi badan oo socod badan oo aan raaxo jeclayn oo bidhbidhka nololeed aan u jeedin, laakiin madaxnimo hunguriyuu hayo, madaxnimada aada ugu adag, boqortooyadana ilaashada. shakhsiyadiisa qof ahaan waxay ku sheegaan inuu ahaa nin cilmi lahaa oo culammada sharfi jiray oo cilmiga jeclaa oo majaalistiisa cilmiga la fadhiisan jiray oo ahlu cilmiga ka barakaysan jiray oo la noolaan jiray, oo haddaa xaggeeda inkaartu kaga dhacday. isagu shakhsi ahaan waxaa la leeyahy nin cibaadaysto caynkanoo caynkana buu ahaa. maamul ahaan waxaa la leeyahy nin dowladdiisa iyo wax ilaaliyo si fiican u maamulo buu ahaa. waxay idhahdeen mashkiladiisu wuxuu ahaa siyaasi hinaasiya buu ahaa. madaxa in cid kale kor u qaada baanu oggolayn, keligii talis, keligii inuu taliyo. walidalik ayaa ibnu lathiir wuxuu leeyahy wa kaana qad istawlaa cala albilaadi waqatala mulukaha waafnaahum wabaqiya huwa waxdahu sulطaan اlbilaad. yacni wuxuu tilmaamayaa ninkani buu yidhi dhulkao dhan buu qabsaday, boqorradii kale iyo madaxdii kale oo dhan buu laayoo gumaaday, keligii baa meesha u hadhay. markii isaga tataarku jebiyeen buu yidhi lam yabqa fi lbilaadi man yamnachum walaa man yuxmiiha. haddaan si kale u tilmaamo waxa weeyaan aniga mooyaane madax kale yay jirin buu taagnaa. madaxdii kale iyo wixii kaleo dhan buu dhulka la simay isagu markii uu jabay. qisatu tataar oo min mongolia ilaa kiivna waa la iga rabaa inaan ka warramo inta ka dhexlaya si loo qabsaday, wakhtigiina 10 daqiiqa ka hadhay. markaan soo koobo waxaan odhan karaa dadka muslimiinta ah dhibaatadii dhexdooda taallay baa jebisay, midnimo la'aantii baa jebisay. dabeetana intii kale markuu gumaadayay isagoo qura soo hadhaya, isagu markii la jebiyeyna wax ka dhiciyo waaye. halkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam siyaasaddiisu ahayd meel kasta oo dowladdii nebi moxamed ay tagto madax muu bedelin nebigu calayhi salaatu wasalaam. manaahijta iyo maamulka qaabka loo wadunbuu wax ka bedeli jiray, laakiin ma jiro reeruu suldaankiisa casilay, boqoruu meeshiisa ka qaaday. wixii uu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhulkuu qabsaday ma jirin nin madaxoo meeluu haystay ba uu ka qaaday, laakiin wuxuu bedeli jiray uun qaabka wax loo maamulayo iyo see wax u socdeen. ciidankii yaraa ee 20,000 ahaa dib bay u soo laabteen. ciidankaas iyo samarqanda 650 kilomitir baa u dhexeeya intay jareen ee ninka ay eryayeen. caalamka muslimka ee ballaadhan bay iska soo dhex marayaan iyadoon cidina taabanaynin, waayo muslim nafla baan marka meesha joogin. waxay ku soo noqdeen magaaladii mazandaraan la odhan jiray, dabeetana magaaladii bay qabsadeen iyadoo magaalo xasiin ahayd. mazandaraan waxay ka mid tahay magaalooyinkii aan cahdigii cumar markii bershiya uu furtay oo dhan mazandaraan muslimiintii saxaabadu ay furan kari waayeen. waxaa la yidhaahdaa waxaa la furtay casri lumawiyiin,
maxaa la odhan jiray sulaymaan ibn cabdilmalik wakhtigiisii baa la furtay yacni magaalo qalcada aad u adag labay ahayd haddana dadku markuu qalbi ahaan jabo 20,000 kun ee ninkaa soo waayey baaba soo cagmariyey ayaa gacanta soo mariyey maazandaran iyagaa qabsaday dabeetana dib bay u soo noqdeen waxay ku soo weecdeen magaaladii ray la odhan jiray ray markay ku soo socdeen dhexda waxay ka soo heleen ninkii madaxweynaha ee eryayeen hooyadii iyo waxoogaa carruurtiisii iyo dumarkiisii ka mida bay meel dhexe ka heleen intiina intay maxbuusnimo u qabteen bay u direen waa 20,000 kun waxaan sidaa wax u wadaa maxaabiis intay ka dhigeen bay waxay u direen jinkis khan magaalada rayi bay yimaadeen markay rayi yimaadeen iyana cagtaa la mariyey tuulooyinkii ku dhadhawaa baa la yimi iyana cagtay soo mariyeen waxaa la yidhaahdaa khaswiin magaalada la yidhaha markay yimaadeen 40 kun oo qof bay madaxa ka jareen waxay soo galeen azerbaijan gobolkan la yidhaahdo azerbaijan bay iyana cagta mariyeen magaalo tabriis la yidhaahdo bay yimaadeen tabriis waxaa haystay bay yidhahdaan nin madaxoo khabriyo cabiska ahaan jiray oo ozbik ibnulbahlawaan la yidhaahdo lacag iyo maryo iyo waxbuu kala hortegay waa 20,000 dabeetana wuxuu yidhi ammaanna siiya intan qaato waa ka aqbaleenoo waa iskaga tageen waxay yimaadeen magaalo tabriis la yidhaahdo reer tabriis waxay yidhahdeen dagaal baanu ka xignaa dagaal bay u soo baxeen jihaad bay iclaamiyeen qolada tani waa khatar bay yidhahdeen ayna dhaafiya waa iska dhaafeen armeniya iyo georgiya bay tageen cagtay mariyeen waa dhaafeen waxay tageen magaalo la yidhaahdo qabiilkan kurjka la yidhahdo kurjigu waa kuwan iminka georgiyanka la yidhaahdo cagtay mariyeen waa kristan qabiil ah iyo wathaniyiin bay isugu jireen kuwaasna cagtay soo mariyeen magaalada tiblis la yidhahdo ay cagta soo mariyeen waa soo dhaafeen sanadkaasi ah 617 ayuu wuxuu ka dhigay khuraasaan oo dhammi inay bilaa dawlad noqoto khuraasaan iyo khawaarizm labada gobole la yidhaahdo khuraasaan waxaa la yidhahdaa waa gobol eeraan waqooyigeeda eeraan berigeeda iyo waqooyiga afghanistan intaasoo isku baxsanba khuraasaan la odhan jiray taarikhyahanadii hore waa meeshay ku taalla magaaladan la yidhahdo balkh iyo marwe iyo naysaabuur iyo harraat iyo ghazne iyo waxaasoo